askarigan waxaa lagu magacaabaa Mathews kan kalena waxaa lagu magacaabaa Ice labaduba waa laba askari oo xirfad sare u leh qoriga sniper-ka ah waxay yimaadeen xaruntii uu falku ka dhacay iyo xarume waxayna arkayaan meydadka 35 askari oo lagu dilay saldhigan waxay baaritaan ugu jiraan sidii ay u heli lahaayeen ninkii dilaaga ahaa iskoobta ay 4 dhinac ku jeedinayaan waxayna qabaan inuu wali halkan joogo balse Ice ayaa oranaya anigu ma aaminsan in dilaagi halkan joogo waana hubaan inuu isaga baxsaday saaxiibka ayuu ku leeyahay adigu gaafureeg sidee wax u dhaceen iyo meydadkana soo hubi baaritaanna ku soo sameey xarunta aniguna kor ayaan ka waardiyenayaa waxa uu qaadanayaa go'aanka saaxiibkii wuxuu arkayaa beebkan aadka u waaweyn waana kuwa shidaalka qaada oo dawladda Mareykanka ay ka fulisay wadanka Ciraaq Mathews waa soo dhaqaaqaya waxa uu arkayaa meydadka dhulka waran saaxiibkii Ice-na waxa uu ka waardiyanayaa kor Mathews wuxuu arkayaa askariga Mareykanka ee dhulka jiifa madaxuna ay xabadu kaga taalo waa uu ka soo dhaqaaqaya isagoo aad u yaaban waxa uu aad cabsi uga qabaa ninka dilaaga ah oo dhabaa ka toogtay madaxa askartii ciidamada Mareykanka ee joogay saldhigan ninkan ayuu maray gaariga saaran isna madaxa laga toogtay waa uu soo dhaqaaqaya Mathews hal mar ayuu soo jeesanaya isagana waxa ku dhacay xabad dhulka ayuu isku tuuraya saaxiibkii Ice ayaa arkaya waxa uu soo cararaya dhanka saaxiibkii qorigiisa ayuu soo qaadanaya isagoo u ordaya qaab gees ah si aan loo leeyahay xabada sniper-ka ah saaxiibka ayuu soo dhawaanaya waxa uu rabaa in saaxiibkii caawiyo laakiin nasiib darro isagiina xabad ayaa lugta looga dhuftay labadii askariba waa dhaawac isla markiiba Ice waa soo ordaya waxa uu soo qaadanaya halamtiisii waxa uu ka soo boodaya darbiga si uu koofar u galo dhaawac aad u xanuun badan ayaa soo gaaray waa uu galgalanaya waa uu soo ordaya waxa uu ku tirsanaya darbigan Ice waxa uu fiirinayaa meeshii ay xabadu kaga dhacday aad ayuu dhiig baxaya waana wax xanaaqsan yahay saaxiibka ayuu fiirinayaa dhulka galgalanaya laakiin saaxiibka meel xun ayay kaga dhacday mana awoodo inuu ka soo baxsado goobtan aadka u halista badan Ice saaxiibka ayuu telefoon kala hadlay waxa uu ku leeyahay istaji wax dhaqdhaqaaqan ha muujin isla markiiba Ice waxa uu ku xirayaa lugtii suunkan waxa uu soo qaaday raadihiisa uu waco xaruntii dhexe laga maamulayay Michigan frequency-ga iyo network-ka dhan waa mid maqan raadihi ayuu dib u fiirinayaa si uu cilada uga saaro waa uu waayay raadiyahan kale ayuu soo qabanaya isagana laakiin wali ma jirto ilaa hadda waxa uu shaqeeyay saaxiibkii Mathews afka ayuu ciida ku hayaa mana awoodo in saaxiibkii uu caawiyo saaxiibka ayuu la hadlaya waxa uu ku leeyahay caawi laakiin ma awoodo Ice waxa dhib ku ah inuu soo qaatay iskoobtiisa dhulka taala kadibna iskoobta ayuu soo qaadaya waxa uu isku dayayaa inuu dalool yar ka sameeyo halkan si uu ogaado cadawgu meesha uu joogo meesha ayuu daloolinaya kadibna waxa uu gelinayaa iskoobtii laakiin isla markiiba xabad ayaa uga soo galaysa waxayna kaga dhacaysaa farta Ice aad ayuu qeylinayaa waa uu xanaaqayaa waxa uu aaminayaa inuu san ahayn maanta mid ka baxsan doono halkan dhigbax ayaa wali ku socda balse wuxuu isku dayayaa inuu dhiigga iska joojiyo ilaa uu markii dambe xabadii iska saaray shaafadahan ayuu soo qaatay si uu lugtiisa u xiro Ice rajadii oo dhan ayaa ka tagtay waa uu walwalsan yahay hal mar ayuu wuxuu arkayaa samaacadan geeska uga xiran oo qof kala hadlayo isla markiiba dhagta ayuu gelinayaa waa uu la hadlayaa waxaana soo wacayo Juba waxaana isaga dhigayaa inuu ka socdo taliska ciidamada Mareykanka Isaaq waa uu la hadlaya waxa uu ku leeyahay waxa uu baahanaa caawimaad iyo guriga degdeg ah laakiin Juba ayaa waxa uu ku oranayaa si aan u ogaado meesha aad joogtid location-kaaga wuxuu dadaal noo sameeyay si aan ku ogaado Isaaq waxa uu la soo baxayaa baskooladan si uu xabad u rido oo u tuso laakiin waxa uu ka shakiyayaa su'aalaha qaabka dareen ee la weydiiyay baskooladiisana waa cishanayaa waxaana galay shaki aad u weyn in ninka soo wacayo yahay ninkii cadawga ahaa ilaa uu markii dambe Juba isku sheegay oo ku yiri waa aniga waxaan ahay nin Ciraaqi ah aad ayuu isugu naxay laakiin waxa uu ku leeyahay Juba haddii aad sameey weydo waxa aan rabo inaad samaysid waxaan dili doonaa saaxiibka waana dhamaystirayaa Ice isla markiiba dhulka ayuu ku sawirayaa xariijimo si uu ogaado ninkan cadawga ee Juba halka uu joogo dib ayuu iskoobtiisa u soo qaatay waxa uu fiirinayaa dhammaan jihooyinka ku aadan oo dhan si uu u helo bartilmaameedka saxda ah ee cadawgu joogo laakiin waa uu waayay mar kale Ice hal mar ayuu waxa uu arkayaa ninkan askariga ee Mareykanka ee halkan ku dhintay kadib waxa uu isku dayayaa inuu ka soo qaato boorsadiisa baagta ah oo ay ku jiraan telefoonka raadaarka iyo sidoo kale cunto iyo biyo halka Mathews uu wali ciid afka ku hayo kuhuna uu dul taagan yahay Ice waa uu fakarayaa waxa uu isku dayayaa inuu meesha ka baxo biyihiisa ayuu soo qaatay waa uu fiirinayaa waxa uu arkayaa in ay daloosho laakiin isla markiiba Juba ayaa telefoonka la soo hadlaya waxa uu ku leeyahay waa ku dili karay markii dhaawaca ku gaarana waa mid aan ugu talagalay ma raba inaad si sahal ah ku dhimatid Ice waa uu iska jiifsanayaa waxa uu ka rajo dhigayaa noloshiisii mar labaad ayuu ku soo laabanayaa daloolkii waxa uu fiirinayaa cadawgu meesha uu joogo laakiin waa uu weynayaa iskoobtiisana waa u soo qaban weynaysaa si uu helo targetka saxda ah Ice waa uu iska seexday waxa uu la seexday dhigbaxa aadka u badan ee ka socda isagoo jiifa ayuu hal mar waxa uu maqlayaa codka makarafoonka waxa uu soo qaadanayaa makarafoonkii in yar kadib Ice waa uu soo kacayaa waxa uu isku dayayaa inuu farsamo cusub sameeyo si uu u ogaado cadawgu meesha uu joogo koofiyadiisa ayuu soo qaatay waxa uu suray qorigiisii iyo jaakadiisii si uu u ogaado ninkani
jihada saxda ah ee uu joogo. Isaaq go'aan ayuu qaatay, waxaanu isku dayay inuu askariga u tago si uu u helo biyo iyo cunto uu cuno, iyo sidoo kale taarkii uu ku dalban lahaa gurmadka degdega ah. Riskiga ayuu qaatay, waa uu soo ordaya, waxa uu ka soo baxaya koonfurka isagoo qorigiisa ku tukubaya. Kadibna waxa uu ku soo duldhacaya ninkii, waxa uu ka soo qaadanaya raadaarkii iyo boorsadii weyneedu sitay. Haddana waxa uu u baahan yahay inuu ku laabto koonfurkiisii. waa uu soo ordaya markale, isagoo ordaya ayuu meesha ka gudbaya, laakiin Jubba waa mid arka, waxaanu kusoo tuurayaa xabad. Isaaq dhulka ayuu isku tuuraya markiiba, waa uu soo gurguranaya, waxaanu imaanaya koonfurkiisii saxda ahaa. Kadibna boorsadii ayuu baaraya, waxa uu ka helaya biyo. Haraad aad u daran ayaa haya, biyihii ayuu afka u dhiganaya ilaa uu ka dhammeeyo. Kadibna waxa uu furanaya buskudkan ku jiray boorsada, waa uu cunaya, waxauna ka qaatay xoogaa energy ah. Intaa markuu dhameeyay taarkii ayuu u soo jeestay, balse uma shaqaynaya taarkii. Kadibna waxa uu soo qabanaya iskoobtiisii, waxauna arkaya in dhaawac uu soo gaaray. Xabadii ugu dambeysana uu Jubba ku dhuftay iskoobtiisii. Rajadiisii oo dhan waa dhimatay. Saaxiibkii Mathiasna waxa uu afka ciida ku hayaa, isagoo aan dhaqdhaqaaqi karin, welina dhiiggii uu ka socdo. Saaxiibkii ayuu telefoon kula hadlaya, waxauna ku leeyahay fiiri muraayadan meeshaan kugu aadiyey. waxauna rabaa inuu tuso saaxiibkii meesha saxda ee uu joogo Jubba. Kadibna muraayadan ayuu ugu aadinayaa. Ice waa uu fiirinayaa tilmaamta saaxiibkii, laakiin waxba kama fahmayo. Mathias mar kale ayuu isku dayayaa inuu qorigiisa soo qaato, maadaama saaxiibkii Ice uusan fahmin tilmaamtii saxda ee uu siiyey. Ice waxa uu iska cunayaa buskudkiisii, waa uuna fakarayaa, waxaanu arkaa saaxiibkii xaaladda uu ku sugan yahay. Mathias waxa uu dhawayaa inuu qorigiisa gacanta ku dhigo, laakiin saaxiibkii ayaa kule ka jooga arrintaa ha samayn. Ugu dambeyn Mathias qorigii ayuu gacanta ku dhigay, waxauna shiishayaa meeshii uu joogay Jubba, halka saaxiibkiina xabada kor rudaya si ay u khalkhaliyaan Jubba. laakiin Jubba waxaas dhan waa uu fahansan yahay. Mathias xabadii ayuu ku shishay, waana uu ku dhuftay. Tii kale ayuu isleeyahay gasho, laakiin xabad ayaa garabka kaga dhacaysa, saaxiibkiina waa uu qaylinayaa. Jubba waa sniper aad u halis badan, waxauna ogyahay wax kasta ay nimankani rabaan inay sameeyaan. Mathias waa uu soo gurguranayaa si uu saaxiibkii u caawiyo, laakiin isagoo arkaya ayaa xabadii saddexaad lagaga dhufanaya dhabarka, ilaa uu dhaqdhaqaaqii oo dhan uu joojiyey. Ice waa uu ooyaya, waxaanu leeyahay waxaan rabaa inaan ku laabto gurigaygii. Jubba ayaa la soo hadlaya, waxa uu ku leeyahay maxaa meeshan ka soo doontay. Ice ayaa ugu jawaabaya waxaan rabnaa inaan waddanka Ciraaq nabadgelyo ka dhigno, waxaan gelinay dhaqaale aad u fara badan, iskoola iyo cusbitaalla ayaan furnay. Laakiin waa uu ku qoslayaa. Jubbana waxa uu leeyahay waxaas dhan waxaad u sameynaysaan si aad dhaqaale uga samaysaan waddanka Ciraaq, dantiina ayaa ku jirta maaha danta waddanka Ciraaq. Ice go'aankii ugu dambeeyay ayuu qaatay si uu u dilo Jubba ama isaga loo dilo. Kadibna waxa uu riixayaa gidaarkii koonfurka u ahaa ilaa gebi ahaanba uu dhulka dhigay si uu ugu mashquuliyo boorka iyo sigada ka kacda derbigan. Kadibna waxa uu shiishayaa meeshii uu u maleynayay inuu ku jiro Jubba ilaa uu hal xaba ku riday. Intaa kadib Ice banaanka ayuu soo baxay, waxa uuna shafka u dhigtay xabadda Jubba si haddii uu nool yahay xabad ugu dhufto. Isla markiiba indhaha ayuu isku qabanaya, waxauna arkayaa inaysan wax xabad aysan ku dhicin. Kadibna wuxuu aaminayaa in Jubba uu halkaas ku geeriyooday. Isla markiiba gurmadkii iyo helikobtarada ayuu imaanayaa, waxaana la saarayaa diyaaradda. Diyaaraddii ayaa kacaysa. Markii ay dhulka ka kacday ayuu hal mar fiirinayaa xagga hoose, waxauna arkayaa in weli ninkii uu nool yahay. Askartii ayuu leeyahay ka jooga, ninkii cadowga ahaa waa kan. Kadibna mid ayaa loo tooganayaa askartii ilaa diyaaraddii oo dhan dhulka lagu soo riday. wixii saarnaay oo dhan uu halkaa Jubba ku dilay, waana intii uu la raadinayay. daawadayaal filimkeena maanta halkaas ayuu ku dhammaaday. tan iyo inta iskaga imaan doono filimka xiga, waxaan idinkaga tegay sidaas iyo nabadgelyo. waan hubaa inaad ilowday inaad muuqaalka like saartid, channelkana subscribe soo tiraadid